السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أدبايدين سلام يا أصحابتي، إذا شرفت بدن ملك استدادونك كجوكتان وحيد الله يا خير بركة يا نور دمانا بإذن الله الرحمن. حان الله يسود الدوادة ما شاء الله تبارك الله. وصيروخ شاق جنل وجنل كان كل مجري وانيقو أفادي ورسن شاق محمد وحيد الله هاي قول يوقبنمو قور يا أيام بإيقو نولادا أصحابتي إذا شرفت بدن الميشان كودا كلنا أن إسوق إيمانه سيدا قروح هذا بدن إذا مرة والبرونتي يجوسوا جوابتان أما يجوسوا قرطان عد بندين كجم هذا علينا وحين دللي هاي جوليستا آخرية الدون با الدون كأنت جوكتو وحدا جوجع الشهاي وحي أدربتي هانكاجي هميجا كوتشري وهراي كوجو صعده الدون كنا آخرنا وحدا جوجع الشهاي إن عد رب الجنة ديسا وكسيو وكله أدون كيجو جنة قل فضلك إلهي بانا لغو هلا سيكستو ونقود دالنو دنبقون بانا كلا يرانيه إلا معها إن جنة أود دي دان شقا سنكرو لكن الله الرحمن كان حريستيسا يفضلقيسا وينو سنكراه ما أنتم حاوم علينا يا حوقا عد والرحمة نوصو بحدي صبح بإيتهاي ما شاء الله تبارك الله الحمد لله على كل نعمة الله إلهي بمهاد إسكاله وسمات نوبريسيي حالينا هردفي عن وناك سنة عفماد قبطان نسيي دمانتين وحرجينا يا إنا عفماد قبطان شرعي الشيطان بالله إنك قبطان بإذن الله الرحمن رون أهانتي وحا أركي كليبيو بدن وإسكا صد بردعيو أنا كهالي دونو مركالي برنامجي ugu horeeyay ee ahaa saacadiyo ay rabtay in loo ansixiyo iyo sida looga soo horjeynsaday iyo sida dadka u diideen wadamadan aan joogno maalin hore gabar baa waxay iga sheekeynaysay gabadheeda oo jaamacad bogtay baa waxay qaadanaysay maxaan ku raahdaay shahaadadeedii iyo waqtigeedii uu u soo gabagaboobay marka jaamacadda waxaa qalin jabinteedii waxaa lagu soo casumay marka nin dumar iska yeel qaniis baa meesha ka qudbeynayo oo inta digriyo uu haysto ani haysata ma dhihi kariye ilaa wuxuu nin buu ahaaye asaga isbedelay allaha dooriye asaga isdooriyey ilaahay meel ugu talagalay sibuu ugu ka dhigay inta digriyo uu haystaa malayn kartid wadamada aan joogno wuxuu ka yahay meelaha ugu sarsare waxaa looga yeeraa oo dawladda uga qayb gala meelaha qaaliga ah meelaha qatarta ah meelaha wanaagsan ee la leeyahay yacnaa ha loo diro hebel meeshaas waa maasha allahu ye jawaab fiican buu ka keenayaa meelahaasaa loo diraa haddana waa la qabaa waa naxa ilaahay aan ku dhaartay nin la qabo بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل waxaan iri marka soo u faanayay tiri hadda aragtidii tiri waa naxaysa aroortayni marka soo waxa ma arkayaan asna biri gacanta bidixda ma ka soo laafiyoonay nee kiyo laho jilcsan sida jalaatadii kama soo horbaxa la ilaahay naga horkeenada caadilo asiis ya rabbi الرحمن ilaahu kaas naga qaba shirkiisa marka ما شاء الله تبارك الله وحن أد وقفرحي سعديو إن لو ديدي أرنتا إيمانتا كسعته إساقو قدوميها برلمان كمان توهالي قدوميها برلمان كلفتين كي سفر باكو قدوم بامركي هورا لها لكن هذا ما أقانا سيدو إساقو بريالي وبرنانكو بيستاقي لكن ضدكي كلا برلمان كجري سيدا فرحيو قبل محانكو هذا برلمان تيريغا كجرتو sida ay uga hadashay quruxda badan aad baan runtii uga hadlay salaatu wasalaam baan haysanaa wax ka wanaagsan oo raadin lahayn ma garanayna meeshii jirto lama qabno gabdhaha Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan shariicada diinta islaamka waafaqsanayn ilaahayna raalli ka ahayn lama qabno waxa dumarkii Soomaaliyeed hadalina kama nihin inna la soo min guuriyo sharci أو حركة شروق قال لي هاي نفعل كمنين كتاب
kitaabkii qur-aanka kariimka ahaa iyo xadiiskii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam baan haysanaa wax ka wanaagsan oo raadin lahayn ma garanayna meeshay jirto qofkii dhahaa haddaana sharcigaas fulina waa noqonaya waddan gaalaa ku noqonaya awalba qofkaas waddankii gaaladu ka yimid buu ku noqonayaa waa garan karnaa amerikay ka timid isaga laabo weeye marka naguma bedesho culamaa udiinku soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed waxay ka mudan yihiin inay waardiyeeyaan diinta ilaahay ku waardiyeeyaan culummada qaar baa waxay ka hadleen markay gaarto gabadhu 50 sano ama ay ka badato 60 sano ay noqoto inay u diyaar tahay wax shareecada diinta islaamka ka fog 50 sanaan jira waa ka sii fogahay wax shareecada diinta islaamka ka fog raalli kama ahi maasha allah tabaaraka allah runtii abay farxiyo aad u mahadsan tahay waa hooyo Soomaaliyeed maadaama hooyo ahay maasha allah tabaaraka allah waxaan leeyahay aad u mahadsan tahay aadan kaaga mahad celinaya iyo dhammaan gabdhihii ka soo wada qayb qaatay gabdhihii maxaan ku raahdaa ka wada hadlay hal arrin oo yara idin xasuusina waddankan aan joogno dumarkooda lama dhibo dumarkooda lama dhibaateeyo dumarkooda raaxay ku nool yihiin miya ya dumarka waddankan joogo inta ay isa soo dilaan oo ayagoo gafuurka ka dhiigaya isa soo raacaan oo haddana gurigooda imaadaan baa haddii ay xitaa booliiska iskugu wacan waxay dhahayaan waa cabsaneen kasoo qaad male taas maa nala rabtaa marka taas maa nala rabtaa iyagiyo isbaacsanay wiilkii iyo gabadhii albaabka intay kugu soo jabiyaan hadhowna la dhaho way cabsanayeen maa rabtay sacdiyo wax hartaana ma fahmine inteeda kale waxaa waddankan ka jiro naagta waa shaqo tagaysaa ninkana waa shaqo tagayaa lacagtiisa goonuu u xisaabsanayaa biilka reerka ku darsanayaa ayadana gooniye lacagteeda u xisaabsanee biilee reerka ku darsanee way isku darsanayaan marka biilkooda annaga laakiin allaha raxmaanka ah iyo diinta quruxda badan heerka ayna gaarsiisay waxaana la yidhi ninkaasaa idiin soo shaqaynaya fariista meel fiiri ninkaasaa kuu soo shaqaynayo ee fariiso meel lama dhihin isgarab orda duruufta inay kalifta mooye danta inay kugu kalifta iyo duruufta ay keenta mooye lama dhihin isdaba orda bal waxaad arkaysaa aabba soo shaqaynayo oo xaaskiisii ay guriga u joogto oo ay qurux badan tahay dad badana aqaana maasha allahu tabaaraka allah oo ilaahay baan ku dhaartay markaan aroosyada tagno xitaa gabadhaas shaqo ma aado meel ma aado waxba ma aado maalintay kifaaxeeda rabto arooskeeda ay soo aadana yacnaha dadkaa wada fiiriyo dharkay soo xirato dadkaa eego dib baa loo jaleecaa waxaa la dhahaa innaba caadi ma aha ma fahantay marka waxaan leeyahay sacdiyooy hana halaagin ina habreed macan khayr allaha ku siiyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad diinta islaamka dib ugu soo laabatid waxaan kaloo runtii arkayay gabar codkeeda la wareejinayay ayadana waa jeclaan lahaa gabadhaas codkeeda inaan idiin soo bandhigo laakiin waxaan leeyahay waxay ka hadashay wax saxa waxay tiri keligaa jahanabo gal annaga hana wada geynin gaalnimo iyo cimrigan adiga keligaa qaado annaga diyaar uma nihin waa gabar yaroo ay dhali karto maasha allahu tabaaraka allah intaas ka bacdi waxaan kusoo gabagabeynayaa arrintii nairobi ka dhacaysa ee la lahaa sixir qofka sheega ma dhaafayso qofka sheego ma dhaafayso iid loo soo fariistayna waa arkaya waa la istixiray hadalkiiba waa maba hadli karaya ma iska aamusyo ila qofka heesuu ku fiican yahay bini aadanka meel buu ku fiican yahay qofna hadalkuu ku fiican yahay qof heestuu ku fiican yahay qof qur'aankuu ku fiican yahay hadalba ma taqaanide hadalkii uun kuu dhammaystirinu meel kale ku bodo hashkadleynaya isaga dhaw hashkadeynaya kabtu ku jiraa
marka haddii adiga lagu sixray big brona uu sixran yahay inta dhimatay ay u dhinteen sixir iyo saamo gudub idinka wallaahi idin taala shaki haddaad dad gelisaan ood shaki ku socotaana ood malo ku socotaana malada inay dembi tahay idin sheegaya ninka raamaha leh iyo naagta raamaha leh iyo maxaan ku idhahdaye idinka weynaanta badan ee meesha yaalo dabqaadka weynaanta badan ee meesha yaalo waxa lagu shubaayo adiga maxaa ka doontay maxaa ku geeyay waa borogaraamkayga dambean kusoo qaadan doonaa insha allahu biidni illaahi raxmaan haddii uu rabbi raalli ka noqdo aniga oo weliba nairobi ka rabo dad badan oo igala soo xiriirayo oo taleefanadooda runtii ii soo dirayna aan leeyahay aada u mahadsan tihiin sida beejkayga maxaan ku rahdaye facebookga iyo instagramkayga dadka igala xiriiraba maasha allah aada idinkugu mahad celinaya waxaan kusoo gabagabaynayaa intaas sacdiyo dadku waa islaam dalku waa islaam diinteennuna waa islaam isma dooriso ismana beddesho dhaqankeennu iyo dhalashadeennu iyo dhimashadeennuna meel bay wada noqon doontaa biidni illaahi raxmaan gafkeenna iyo geerideenna ilaahay ma kulmiyo waxaan leenahay allaha raxmaanka waxaan ka baryaynaa isagaa qalbiyada gadgadiya inuu qalbigeenna ku sugo ilaahay inuu qalbigeenna ku sugo diintaas allaha raxmaanka waxaan ka baryaynaa marnaba in aanan ku dhicin wax cadaabna geenayo iyo wax jahannamo noo horseeda intaba ilaahay hanaga fogeeyo kuwa mar walbaba isu dardaarmana allah inaga dhigo cafi iyo caafimaad dhammaantiinba waxaa idin leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu